waxaan aaminsanahay madaxweynaha kaliya oo samata bixin kara xilka haddii loo doorto madaxweyne galmudug 4 sano soo socota inuu yahay Axmed Cabdi Kaahiye Qoorqoor taageeradan iyo xafladan aadka ugu quruxda badan waxaan ku soo dhaweynaynaa codkii balan lagu siinayaa musharax madaxweyne Axmed Cabdi Kaahiye Qoorqoor waxaa qoorqoor waan soo dhaweynaynaa qoorqoor soo dhawow meeshan waa balanballe waana ku rabtaa waana ku soo dhaweynaysaa dadka iyo isha dadka magac dheer dadku aad iyo aad baan dadtaada wanaag uga maqlaynaa in wanaagsan inaad tahay oo galmudug maanta samanta bixin kara inaad tahay dadka waa nooga soo dhacaysaa waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada ku guulaystay maanta galmudug inay soo dhaweeyaan wixii wax u qarahaya galmudug oo wax u qabanahaya oo samata bixin kara sida Axmed Cabdi Kaahiye Qoorqoor oo kaleetaa looga baahan yahay ilaahay mahadu ha ka gaadho ee balanballe baawur bay leeyihiin ciday doortaana waa dooranta Axmed Cabdi Kaahiye Qoorqoor way doorteen waana dooran yahay waxa weeye annagu haddaan nahay reer balanbal dad isku duuban baan nahay dad bulshada jecel baan nahay dad dawlad jecel baan nahay dad islaam ahaan nahay iimaan baan leenahay hambaliyo waa ku soo dhaweynaynaa madaxweyne waan anigu halkaan ka leeyahay waxay yihiin mid waxaan leeyahay xildhibaanada federaal ee galmudug oo labaad baan leeyahay midna waxaan leeyahay musharaxa madaxweynaha Axmed Kaahiye Qoorqoor baan leeyahay xildhibaanada waxaan leeyahay waxaan u aragnaa haddaanu nahay caqligii balanballe iyo dhalinyaradii iyo odayaashii iyo dhaqankii degmada balanballe haddaan nahay waxaan u aragnaa inuu yahay musharaxa maanta samata bixin kara galmudug inuu Qoorqoor yahay ee doortaan idin leenahay isaga doorta mid kale idin maanaan dirin waxaan idin dirnay Qoorqoor ee doorta asagaan idin dirnay musharaxa waxaan leenahay musharax degmada balanballe waa degmo guuna waa degmooyinka Soomaaliya degmooyinka ka midka ah oo aan mucaaradka lahayn mu'ayidka ah madaxweynayaashii hore oo galmudugna ma imaanin waxaan ka codsanaynaa markii lagu doorto waa lagu dooranayaa inaad balanballe timaado dhaqaalaheedoo dhan wax ka qabato waxaan soo dhaweynaynaa oo diyaar u nahay oo xilka ilaahay baa siin kara in rabbi uga baryaynaa inuu siiyo Maxamed Axmed Cabdi Kaahiye Qoorqoor waxaan leenahay Qoorqoor annagu xilka sii karna ilaahay baa ku sii kara laakiin ilaahay ku salaam lana kada labaad xilka waad helaysaa markaad hesho madaxweynihii cadli ku haya ummadana ugu garsoora Allah ka dhigo ciidan kula tartansiinayno haddaan reer balanbal nahay iyo ciidan ku garab dhigayno midna ma jirto haddaan nahay reer balanballe waxaan dooranay madaxweynaha galmudug maamul goboleedka galmudug Maxamed Cabdi Qoorqoor baan dooranay codsanayna xildhibaanada baarlamaanka inay nala doortaan baan codsanaynaa oo hadday kala diido kuwa annaga naga soo jeeda inay doortaan baan codsanaynaa 5 sano carrada dawlad jirin calanna noo muuqday oo cadaada iyo gobolka aan ku jiidaynay oo kala cawdeen reer galmudug lana cambaareeyay oo cadaaladii guurtay oo ciidan ugu raagtay qorashada labaad ay hadday taladu ceeriinto oo aan carrada dawladda mancaata loo dhimayo cusubkii ogbaadka rabaa inaan cadeeyaay codka siiya Qoorqoor anu kaliya ka dhig maayo codka siiya Qoorqoorka iyo xumiyay saadaq baanin codka siiya Qoorqoorayyo xumiyay saadaq dawlad caadilo dawlad waxa ka dhalan carabeerta ambar baysan mari reer galmudug oo cirkaadii colaadiya dagaalka dhamaan oo ciisa iman adawga shabaab sidii deero loo cunin dekada cakiran oo hobyood bay ku caanbixin eelkii shidaalkii dekada cakiran oo hobyood bay ku caanbixin ciiriin shidaal iyo batrool bay imaamadin ciiriin shidaal iyo batrool bay imaamadin eelka dahabka iyo dheemanka ka cabi doonaa qof walba intiis ku cay
قف البعيد سعيين وعرول بحرف سديتني يا سجال كاسعد وعادل ديسيي كعسومة قرقرة يحريه صادق كعسومة قرقرة يحريه صادق هديك له أمر هديك الأمر رجوع عند معنا في المصانع